qaar ka mid ah dadkii dhaawac ka soo gaaray dagaalkii shalay gelinkii dambe ka dhacay degmada Taleex ee gobolka Sool oo sababay dhimashada ku dhawaad 8 qof iyo tiro intaasi ka badan oo dhaawac ah ayaa la soo gaarsiiyay ilaa 4 ka mid ah dhaawacaasi isbitaalka dhexe ee magaalada Laascaanood oo haatan lagu dabiibayo halka mid ka mid ah dhaawacaasi oo xaaladiisu aad u liidato loo qaaday dhinaca magaalada Hargeysa annagoo saddex nin oo culimo ah meel fadhina ayaa soo galay ciidan fara badan ka bacdina wax biyo maayaan moodo sida roobka oo kale ah oo magaalada ogadeedii ay sida casaatay maxaan ku dhahaa rasaas sida lagu sii dayeeso iyo tarafsasate iyo aad iyo inaba aan kala soocyo naxariis iyo qof hubeysan iyo qof kale iyo caruur iyo maato aan kala sooc lahayn bini'aadanimada ka baxsan waxay uga tallaaboodaas laftu ma jabna laakiin muruqa weyn bay la baxday kelidana way uga taallaa kelida laakiin kor bay ka martay dhabarkaasna waxaa iga yaalla dhowr عاقل عبد الناصر حسن حرسي يا عاقل اسماعيل علمي احمد يا دنكودا baaq nabadeed ka soo saaray in colaadaasi loo kaco sidii looga qayb qaadan lahaa diminteeda tooyinka ka dhacay gobolka Sool hareerihiisa gaar ahaan magaalada Taleex waxaanu u tacsiyadeynaa ummadda dhibaatadaas ay ku dhacday ilaahay intii dhimatayna samir iyo iimaan ilaahay ka siiyo inta nool inay ka waantowdo oo ay nabadgelyada iska kaashato iyadoo gacmaha haysata oo dhan walba ay eegayso dhibaatada ka jirta tacsida kadib waxa ka dhacay Taleex arrin fool xun oo shalayto dad badan ku dhinteen waxyeello badan magaalada lagu gaarsiiyay dadkii ku barakaceen arrintaas ayaa waxaan doonaynaa in si degdeg ah arrintaas xabad joojin loogu sameeyo marka hore nabadgeliyo iyo wada xaajood arrinta lagu dhameeyo walaalaha iyaga dhibku gaadhayna waxaan leeyahay iyana is xakameeya Cabdiraxmaan Ali Ducaale